بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعيدي أوسدحن حال لها honorable عبد القيوم سو نور. أنا ما ركتي حلبان هذا الدونايو قيبتا member of county assembly بناني واد. ما أنتم حاروا إن كهالله أرنتي دعدي تاريخ لواتن يسدح بشي أفراد 2022. ما ركتي دت كاينو laga qaaday ari gaarayso 150 dhinaca laga qaadana waxa waay Kambi Samaki waxa qaadeen shufto oo dhinaca ka soo jeeday Isiolo County saddex ay ahayn dhibaatadan horta horaan shacabka meesha joogeen dadka diyaalada meesha ku nool booliiska ay u gudbiyeen inay dhibaato soo socoto oo noocaas laakiin booliiska sidii laga rabay inay ma aragtay arintaas ay xoojiyaan ay ma aragtay laaba ka qaadaan may suurtoobin mayna sameeynin anakana waxaan leenahay hadaan nahay dad madax ah taas waa mid nasiib dare ah because waxa la rabay booliiska inay ma aragtay wax ka qabtaan xal ay meesha keenan waxaan leenahay anaka haddaan nahay madaxda amni aadan u eegaynaa because saameyn weyn ayay ku leedahay noloshayna sidaas iyadoo anakana xaqdaro uma jeedno hadday maaragtay xaqdaro ay dadkayni ay dareemayaan ayna maaragtay ku dhacayso waa inaan anaka dadkii koowaad inaan difaacno arintan aad iyo aadan u xambaareynayna hadda waxaa lagu jira xilli oo ma aragtay doorasho waxaan dareemaynaa ma aragtay inay maasuq nooc kala socdo dhinacan Isiolo County ka imaanayo anaka waxaan leenahay jiiraan baan nahay yaa la isku xadgudbin haddii ma aragtay in la rabo la kala baxo shariicada lagu kala baxo laakiin dhibaato inay dadkan loo geeyo ma aqbalayno kun jeer waana difaacayna difaacan aan ka hadlayo waxa waaye shariicada un baa ku kala baxayna sidaas waxaan ka codsanayaa wasiirka iyo ninka booliiska u weyn inay arintan ay soo dhaxgalaan awalan waxaan rabnaa ariyaashaas in la soo celiyo waad ogtihiin ariyaal dhinacan Isiolo ka imaado especially ariyaal baadi waan celinaa dhinacayni Garissa County laakiinse 150ka dhumtay waxaan rabnaa in cidda loo soo celiyo taasa arjinaga kuway ma aragtana maasuq iyo dhibaato wadaan inay ma aragtay dawladda ay qabato sharciga ma aragtay aan ku kala baxno wahada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh